Assalaamu calaykum. Ku soo dhow daawada shanta magaalo ay ku nool yihiin dadka ugu caafimaadka badan adduunka. Qof waliba oo koonkani ku nool waxa uu jeclaan lahaa inuu ku noolaado deegaan caafimaad badan. Waxa hubaal in bini'aadamku ay qayb muhiim uga tahay arrintani, maadaama waxa ugu horreeya oo qofku qaata ay tahay hawada. Waxaa laga yaabaa in mar walba aad isweydiisaan meelaha ay ku nool yihiin dadka ugu caafimaadka badan uguna cimriga dheer dunida. Haddaba daawadayaal, waxaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa shanta magaalo ee ay ku nool yihiin dadka ugu caafimaadka badan uguna cimriga dheer ee ku sii darsaday inay yihiin bini'aadamka ugu xasuusta badan caalamka. Aragti ahaan, bulshada caalamku waxay u heestaan sheekadan inay tahay mid meel awaal ah, balse waa dhab ee daawo. Kuwani waa shanta magaalo oo ka mid ah meelaha ugu fayadhowrka badan caalamka. Magaalada Okinawa ee dalka Japan. Magaaladani waxay caan ku tahay oo ku nool haweeneyda ugu da'da weyn caalamka. Waana magaalo dadka degan ay ka caafimaad badan yihiin kuwa degan magaalooyinka kale ee waddanka Japan. Magaalada Ikaria ee dalka Greega. Magaaladani waxaa ku nool oo ay caan ku tahay dadka ugu xasuusta badan adduunka. Waana magaalo ay ku yar yihiin dadka uu ku dhaco cudurka lumiya xasuusta. Gobolka Trieste ee dalka Talyaaniga. Gobolkani waxaa ku nool dad aad u tiro badan oo qaarkood dadoodu ay gaarayso 150 sano. Saynis yahanadu waxay ku sheegaan in gobolkani uu ka mid yahay meelaha ugu cajiibsan adduunka, maadaama ay ku nool yihiin dadka ugu cimriga dheer caalamka. Nicoya Peninsula waxay ka tirsan tahay dalka Costa Rica. Deegaanada uu gacankani ka kooban yahay waxaa lagu tilmaamaa meelaha ay ka dhacdo dadka ugu yar ee dhimashada dhexdhexaadka. Sidoo kale waddankani waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay meesha labaad ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee cimrigoodu dhaafo 100 sano. Magaalada Loma Linda oo ka tirsan gobolka California ee dalka Mareykanka waxaa lagu tilmaamaa inay ka mid tahay meelaha ugu cajiibsan adduunka. Dadka taxliiliya cilmiga sayniska ayaa ku ammaanay magaaladan inay bay ahaan ay ka wanaagsan tahay Mareykanka intiisa kale. Waana sheeko kale oo aad u cajiib ah. Haddaba daawada, adiga maxaa kaaga baxay sheekadani ku saabsan goobaha ay ku nool yihiin dadka ugu cimriga dheer uguna xasuusta badan adduunka? Si aad ula socoto warbixinada kale aadka u xiisaha badan, fadlan like saar, siina share garay page-ka Timcadde si asxaabtaada kale ee kugu xiran ay warbixinada halkan idinkula wadaagno ay uga faa'iideystaan. Mahadsanidin.